beesha reedadu kamid beelaha daga gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta xaflad caleemasaar ay ku qabsadeen degmada Quljeeda ee gobolka Awdal waxay ku caleemasaareen Suudaan guud ee beesha Siyeelanaso oo dhawaan lagu shaaciyay gudaha magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxaana ay beesha Suudaankaas u dooratay inuu noqdo Suudaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad wafd badan oo hogaaminaya Suudaanka la doortay ayaa baar saacadu markay 12 subaxnimo soo gaaray degmada Quljeed ee gobolka Awdal waxaana si badan u soo dhaweeyay Suudaanka dadweynaha degmadaasi maamulka degmada oday dhaqameedyo iyo mas'uuliyiin kala duwan markii uu soo gaaray gudaha degmada Suudaanku waxa ku soo wareegay dhamaan suuqa degmada intaasi kadibna waxa loo galbiyay Suudaanka dugsiga sare degmada Quljeed halkaas oo ka dhacay xafladda caleemasaarka Suudaanka munaasabada caleemasaarku ah munaasabad si balan loo soo agaasimay ayaa gooreen waxa ka hadlay gudoomiyaha qabaqaabada xafladda caleemasaarka Maxamed Cilmi Faarax waxaan uga mahadceliyay dadweynaha goobtaasi ku sugnaa sida wanaagsan ugu soo dhaweeyeen isagoo Xuseen ka beelahan isku raacsan Suudaanka ay doorteen waxana uu yiri Suudaanka maanta dooranay halboorka reerka Cabdilaahi Qayaad waxaan leeyahay Suldaan waa lagu doortay rabbi kugu taageero marka koobaad marka labaad gabiye heliyo laginta wada taalaba dabkii baxada kiidamiya ahaw waxaan kaloo kugu dardaarayaa beeshiya joogtada illa dugsado duubiga ummadda ahaato oo lafdabar ka talisan kugu ducaynaya marka la saddexaad waxaan ka hadlayaa waxaan iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamid ah caaqilada gandaha beesha Jibriil oo xafladda caleemasaarka Suudaanka ka soo qayb galay waxaana ay ka dhawaajiyeen laakiin qasabtigu wuxuu noqon doonaa ujeedadu war Jibriil siyaadan ah yaa Jibriil isku wadi kara yaa 720 ka dabay Jibriil 230 ka dabay Jibriil yaa isku wadi kara marka waxaan leeyahay oo aan ugu boorreynaa cid walba reer Quljeeda way niimari maxaa Jibriil isu haysa maxaa Jibriil istaanwa maxaa samaroon tanwa in la yiraahdo waxaan xukuumadda madaxweyne Siiraaya leeyahay waxa jira xarig badan oo lagu wado beesha Jibriil mana yeelano maanta waxaan anigoo kamid Jibriil oo wada Suudaanka guud ee beelaha Dubal Ismaan Suudaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad kuma wada noqon ahaan kuma wada nixita ahaan kuma wada saaxiib ahaan waxaan ku wadanaa waxa weeyaan Suudaan muddo badan soo dhaxjira saaxadda sultanada caaqil Jibriil iyo siyaasi Cabdi Miicad Aleel oo hadalka iska daba qaatay ayaa iyaguna waxay xuseen Cabdi Cabdilaahi Qayaad wararkiisii waxaan ku dareemay xafladda Boorama garadkii raadis gabagabadii waxa munaasabada caleemasaarka soo xidhay Suudaanka la caleemasaarayay Suudaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad waxaana uga mahadceliyay dadweynihii madashaasi ku sugnaa sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxaana Suudaanku ballan qaadeen beesha dooratay ku maamuli doono midnimo cadaalad iyo run waxaana Suudaanka hadaladiisa kamid ahaa waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo galay kulli halkan ma soo galay halkan dheer baa soo galay ragac khayaan soo galay qaal adag baa soo galay oo hareeraha taagan midrow sidii uruba kamid ah محمد عند الدور بقى كبير المعدي معاه الله كمله يدوق بالمدو بقى كمله مقرب بالمدو ينكر المقرب سوق بكريم كل واحد الله وحنا قال معارض بولي يا رسول كان معارض القندار بقى سوق لي يعينوا لوب بولي ما انت وعلى يدي وهون وين ما العرض وقال يا بوس كان الى هاي واسره ندعي ممكن بقول واسره ندعي waxaan kala lahay ka dhexdiisa hadee wax yaro ma xadiis ay dhaxtaalo wada hadal iyo walaalnimo iyo fadhiga ku dhamaysanayna isku soo duubay xafladda caleemasaarka lagu caleemasaarayay Suudaanka guud ee beesha reedadu ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi aad u degan waa Mustafa Caraale telefishinka caalamiga Somali News magaalada Boorama